waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada barnaamijkii Dhaxal Hooyo aad uga barateen baraha bulshada ee YouTube-ka. maanta waxaan taleynaa hadduu ilaahay ka raali noqdo fanaanad dhaxameed maadaama waqtiga dhaxanta aan weli ku jirno aan ka bixin. waxaan taleynaa fanaanad culus oo gabar ilaa 10 jir ee gashan karta hadduu ilaahay ka raali noqdo. qoorta waxaan ka dhigaynaa konton qoorto inay kor u kacsanaato qoor cariiri ah u sameynayna insha Allah. dhuunta inay ku dhaganaato ashan dhaxan si u dareemin gabdheerte qoorta konton silsilada ka dhigaynaa bacdina waan ku soo wareejin doonaa hadduu ilaahay ka raali noqdo. waxaan taleynaa garbaha oo 30 dhinacan iyo dhinaca kale oo 30 intaas waxay isku noqonayaan 60 silsilada isku noqonayaan. marka hore intaas taleynaa markaan aan tolno gacmaha ku dhajinaynaa insha Allah hadduu ilaahay ka raali noqdo. waxaan ku sameyn doonaa laamo kalar kale kalarkana isticmaalana maanta iyo irbadan shanta number 5 kadibna insha Allah waxaan ku kortoleynaa tulip flower oo 3 xabadood ama hal xabo umarba sidaan u aragna inay ku qurxoon tahay hadduu ilaahay ka raali noqdo. marka waa isla soconeynaa insha Allah. mashruuca waxa ugu baahan tahay qalin iyo buug saan hore idinku sheegay irbad wax lagu tolay iyo dunta lagu tolay dunta nooc aragtida soo iibsan karta shirkada kala bedelan oo kala dun fiican oo kala dun culus ayaa jira qofka dunta ka helayo soo iibsan kara kalarku jecel yahay oo ka iibsanaya suuqa hadduu ilaahay ka raali noqdo. hadda waxaan bilaabeynaa koodka silsiladood qoorta بإذن الله الكريم 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 waxaan soo talnay konton silsiladood waxaan hubinaynaa inay saani tahay silsilada ashan si aan isku qabano haddii kala marorsan tahay hadhow tulitaanku ay nagu dhibi doontaa hadduu ilaahay ka raali noqdo. waxa la rabaa gabadheer in madaxa cariiri ooga noqonin oo si fiican oo madaxan si fiican ugu galo dhuuntana si fiican ugu qabtiso. marka waxaan sameynaynaa waxaan ku tuleynaa fanaanada 1 crochet bis hal god kaliya ku tuleynaa laba silsiladood ma ka dhigayno waxaan ka dhigaynaa hal silsilad markaas la socono hadduu ilaahay ka raali noqdo. waa ku wareejinaynaa dunta oo dhan kan waa qoorta madaxa meesha laga gashanayo hadhowna hadduu ilaahay ka raali noqdo qoorta qabanayo marka si tartiibina u tolnayo oo si qurux badan oo isla eg oo maaragtay waxba iscaaj dadka qofka oo ku labisanayo fanaanada hadhow waxba iscaaj ay ku noqonayna hadduu ilaahay ka raali noqdo. meeshaan aan ka bilaabnay ujeedin waa soo wareejinayna hadhow intaas soo imaanayna waa kana waa soo wareejinay halkan aan ku qabanaynaa saan hore idinku sheegay casharadii hore aad ku soo aragteen. hadduu ilaahay ka raali noqdo safafka waa zaa'idinaynaa marka safka zaa'idintiisa waa 2 dariiqo baa u zaa'idin kartaa daarad hal iliga gelinay daaradna 2 iliga gelinaysa anaga shay qurux badan saa ku helna 2 iliga gelinayna laano 2 ilig markii la geliyo xoogaa wuxuu siinayaa dhadhan u yeelaya. marka waa wareejinaynaa 5 wareega aan soo toleynaa hadduu ilaahay ka raali noqdo. markaas oo isku soo laabaneynaa waan arkeynaa see noqoto laakiin hadda intaan ka bixin ka hor sidaas ay noqonaysaa qoorta inay ku soo aadaa la rabaa inuu ka kaduuto ma loo baahno inuu si ka noqdo ma loo baahno oo odayna si fiican noqotaa la rabaa saas dharka uu la dunta ay u kala baxdo shan saani u noqoto qofka si fiican uu leebisto xitaa sheebka markaa tushid fanaanada aad u qurux badnaanaysaa waxaan qaloocneen waxaan si ahayn kan hadhowaan toosinayna irbad lagu toosinayna insha Allah waa idin tusaa irbadana ku toosinaysaa gudaha gelinaysaa hadduu ilaahay ka raali noqdo. hadda dadku kooleen kartaa xitaa koolada dharka kula dhajinaysa waa xir si fiican oo xiraysa koolada dharka kula dhajinaysa. marka insha Allah hadda 5 wareega soo tolona oo qoorta qabashaalkeeda waa isku soo laabanayna hadduu ilaahay ka raali noqdo. ma sha Allah waa taas 5 sadra soo tolnay saa ujeedinku 2 3 4 5 waxa waa qoorta ay qabanaysaa 5 wareega soo tolnay 5 sadra soo tolnay saa ujeedinku 2 3 4 5 waxa waa qoorta 5 wareega soo tolnay 5 sadra soo tolnay saa ujeedinku 2 3 4 5 waxa waa qoorta 5 wareega soo tolnay 5 sadra soo tolnay saa ujeedinku 2 3 4 5 waxa waa qoorta 5 wareega soo tolnay 5 sadra soo tolnay saa ujeedinku 2 3 4 5 waxa waa qoorta 5 wareega soo tolnay 5 sadra soo tolnay saa ujeedinku 2 3 4 5 waxa waa qoorta 5 wareega soo tolnay 5 sadra soo tolnay saa ujeedinku 2 3 4 5 waxa waa qoorta 5 wareega soo tolnay 5 sadra soo tolnay saa ujeedinku 2 3 4 5 waxa waa qoorta 5 wareega soo tolnay 5 sadra soo tolnay saa ujeedinku 2 3 4 5 waxa waa qoorta 5 wareega soo tolnay 5 sadra soo tolnay
dhinacan waxaa dhinaca bar islaamka waa dhinacan mar walba waxaa xaawilina laana crochet markaa tuleysto wuxuu leeyahay dhinac qashqashaad dhinac dhinac isku qasqasmaayo leeyahay iyo dhinac clear waa sida dharkoo kaleeto oo maaragtay qaarna ay leeyihiin dhinac nadiif ah qaarna dhinac kale bar islaan maxaabni wareernaa bar islaan aba la dhahaabo marka insha Allah hadda waxaa bilaabeynaa garbihiya bilaabeynaa maxaa hore u sheegnay waxaan dhahnay 30 aan toleynaa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okay 10 xataa daawo 30 ka dhigino 10 ku ekeeno 10 kasbixdana laga rabo mugtahay 10 iyo dhinaca kale oo 10 waa 20 halkaan 50 ku heesanaa 52 u qaybay waa 25 20 iyo 25 45 soo 45 12 ka dhiganaa 5 say gabadh yarta u la ekaato okay dadkii waxaa maskaxdeeda ka baxay safkan inuu noogu jiray xisaabta inuu ku jiray kas waxa xisaab iska xisaabi hadaa xisaabinin waa ku wareeraysaa for example hadda inta oo 50 hadaa intan 30 ka dhigno 30 intaan waa intan in la eg noqonaysaa qof dubi bin aadan oo noqonaa marka matoosada aan ka dhiganayna insha Allah waana ka xumahay tiradii hore oo qaladka ahayd marka insha Allah markaas aan u talna 12 xabad kala ku dareena kus waa uu soo laabmi doonaa kan mugtaa soo marka soo qabanayna waa la soo laabeena soo qabanayna kan waa gidinayna shan si aan bar islaamka u helno dhinac fiican hoos noogu marnaa aragti qaladkaas meeshuu ka soo baxay kus bar islaam markuu yahay dhinac fiican hoos u mara dhinaca qashqashaadka hoos u mara dhinac nadiifka ahna kor u soo mara marka mar walba iska ilaaliya anigana insha Allah iska ilaalinaya bilawga mar walba waa lagu wareeraya bilawga mar walba waa dibadin iska dulqaata tartiib u taleena shan san u helno wax fiican oo nadiif ah hadana haduu nadiif yahay dharka tulitaankiisa xataa harqaanleyda hadii si fiican ay u tolin ma qurux badnaanayo dharka ma ahan quruxda dunta ma ahan ama waarka aad soo goosanaysid ma ahan quruxda waxa waaye sida aad u tuleysid ina foojignaan u tushida laga rabaa adoo foojigan inaad tushid si wixii aad iyo aad u qurux badan si uu ku noqdo fahamteen isla fahamni horta intaas qofka dharka oo maaragtay gacantiisa ku haayo sameynayo waxa la rabaa inuu ka foojignaado waxa si u tolaayo si isku soo aadeyso laana hada sidii hore aan ku wadi lahayn bar islaam oo naga noqon lahayn fahamtay marka kala nooc oo noqon lahaa qoortin waxay noqon lahayd dhinacii aarabtay waxaan ku dhahaa garbiina waxay noqon lahaayeen bar islaam ay noqon lahaayeen laakiin alxamdulillah taas danta waxay u kali fileed hadana dib inaan u furfuro wuxuu dhan hadana aan markuu ka soo bilaabo marka alxamdulillah inaaba arkay inaan qaldana marka waa inta soo gaarin jeedin inta ku qabanayna hadana tararag ilaa intaan aan la tageena waan xisaabinayna oo maaragtay 25tan xisaabtan inuu jirtaa kana waa ku dareena insha Allah isla wada arkeena si noqoto qayb badan asku ma sha Allah waa kaas qorto waa tolnay garbihiina waa soo tolnay waa kaas sasa u tolnay halkan waa 12 halkan waa 12 gabdha yar waa horta 10 sano 10 jir 11 jir waaye saas ma weyno laakiin waxa waa hadhow meelahan labada xab zaidka hadhow garbaha markii uu dhajinayo qaar ka bixi doona laakiin qoorta hada tolnay hadana waxaan tolnay xabadkii
marka xabadka saas usoo dheereynayna ilaa iyo 15 senti oo kale xabadka kale eegan soo dheereynayna kadibna waa isku soo laabanayna cashan saan aan idin tusnaa horta mid kale fiir gaar ah dhinacan sidaan uu noqday dhinaca kalena sidaan saan usoo talnay gidi kala aan u taleynaa marka xabadkan soo taleynaa iyo dhabarka gacmahan aan u reebeynaa meel yar oo intaas lee gabdhaha ay ka xirtaan gacmaha ka baxsadaan aan u reebeynaa marka gacmaha aan reebno insha Allah waa idin tuseynaa marka sidii loogu daraayo godadka kale ee zaaidka si ay u noqoto sida sawirka hore ugu soo aragnay oo kale fanaanad gabdheed oo qurux badan oo munaasabad kasta ay ugu dhabisan karto insha Allah haduu Ilaahay ka insha Allah waa kana waxaan soo tolnay 16 sadaraan soo tolnay marka haddana 16 sadar kalaan toleynaa marka duntan waa dheereysan laan hadhoodii aan u baahan doona marka waxa idin tusaa sida dhinaca kale aan u bilaabi lahaydeen tunta soo gelinaysan lish isku xirnaysa shan waxaan dun waa la goona waa la furaa waa la xiraa waa la goona waa la furaa waa la xiraa bas hadhoodii la rabaa keenin fiican inaad u samaysid haduu Ilaahay karaal noqdo marka waa ka insha Allah meeshaan ka bilaabayna soo bilaabayna shan waxaan rabnaa hoosta ka soo gelinayna ana ma rabno inay maaragtay kala gooni ee u muuqato aan rabin marka dunta hoosta ka soo gelinayna shan hal saf see u noqoto soo qabanaya iga wareersan kan ciriiriga xoogaago soo qabanayna markaan soo gaarno meeshii aan dunta ka bilawnay oo meeshaan waxaan sameeynaa waa ka wareegsanayna kana ku qabsanayna haduu Ilaahay raado kana baa la isku siinaa horta halkaas u qabanay ilaa iyo dhamaadka safkii kale hore u soo tashay ku gaarsiinaysa waa sii soconay waa sii celinay si dunta ay kaamil u noqoto insha Allah waxa isku soo laabanayna markaan soo talno 16 saf dhinac kaleeto waadana xaalad tusasaa isku qabanaysiin meeshan waxaan rabnaa inaan bilaawno gacmaha hoostooda ama caloosha iyo wixii tiiqilahaas ay noqonaysaa ما شاء الله واكس وصوتني labada dhinac aan soo tolnay gacmaha meesha ku soo aadaayay qoortana way noo tolan tahay saan birislaan waaye saan saxdeeda marka u gidist baashas marka u gidisida quruxdeeda soo baxaysa halkaas iyadana waxay noqotay isku joogay noqotay taas marka hadda waxaan bilaabeynaa qaybtii labaad saddex qayb waaye baasha qaybta koowaad qaybta labaad aan bilaabeynaa qaybta saddexaadna insha Allah waa isla wada toleena marka xagan duntii waatanaati dheereed markii hore aan dhaafanay waa la isku xirayaa cashan waxaa la rabaa inay noqdaan hal wax oo maaragtay hal meel laga xukumo inay noqdaan la rabaa waxyaabahan dumanka meelaha ka soo jejeeda waxbaha u bixin hadhowda waa habeenayna dunteena dheereedna dunteena kala dheeraan ku xiranayna laana waxa waaye hada hal dunaan dhameynay sidaan fanaanada waxay u baahan tahay ilaa 3 dun 4 dun yani 4 xirmo ma 4 kubo ma oo dun ama 3 kubo marka hadda waxaan sameynaynaa waxa ka gudubnay marxaladii xabadkii gacmaha ka gudubnay waxaan sameynaynaa tazayud wax la dhahay laakiin marka hore waxaan soo marinaynaa hal xabo oo hal wareeg oo isla eg aan soo marinaynaa shan saan isku wada xirno labada dhinac saan isku xirno wareeg aan soo marino ku soo wareejinayna waa isku dhejinayna ma sha Allah waa kana waa soo tolnay gacmaha qoorta waa noo tolantay gacmaha way noo diyaarsan yihiin
اللي تحت اسكو دجيني marka waxaan sameeynaa wax la yiraahdo tazaayud kaas waa maxay waxa waaye koow kana qabla koow 2 3 4 5 6 todoba markay gaarno number 8 maxaan sameeynaa laba jeer gelinina nafsi godkiyaan ku soo celinina mar labaad marka hadana koow 2 3 4 5 todoba markaan gaarno hadana 8 sidoo kale yeelana isla godkii laba jeer ku celinina waxa kada waa ku soo wareejinina intaan oo dhan ku soo wareejinina waana ku dheereynina ilaa iyo 15 saf 20 safan ku toleena markaas insha Allah waa isku soo laabanina Assalamu warahmatullahi wabarakatuh waa kana fanaanad waa soo tolnay gacantaana ku dhijinay gacantaana had ku dhijinayna عادة تنطق وحريسة هذا ماشان كبلاد اسكو ميت واي لكن waxaan rabaa xisaabta inay ka wareegsana ka wareerna la rabaa oo hada inta ka toleena cashan waxaan rabnaa gacanta caadiga oo kaleeta inay noqoto marka 10 xabo 5 xabo dhinacna ugu soo dageena 5 dhinac kale ugu soo dageena qaakan ku 2 3 5 kana طيب كنكي دح برتانك waa marka hore aan ka bilaawne dhinacana 5 xabo ugu dageena 1 2 3 4 5 waxaan sameynaynaa mid oo laashii waka baadin waa laabanayna halka xablaashiga waa ka laabanayna saasa u laabanayna kan laba xabo ka dhigayna waa ka dunta marka ku soo qabanayna ashan waxa rabnaa gacantiisa qurux badan ay u qabsato kan tanaqusna ma aha tazaayudna ma aha laakiin gacmaha caadatan waxa waa gacanta waxay noqonaysaa sida harqaanka markii lagu jaro oo kale inay noqoto la rabaa hada oo saani kulligeed lagu soo wada wareejiyo nooc kale noqonaysa laakiin noocyo oo kulli lagu wareejiyo way jiraan oo maaragtay oo u baahan in asaas loogu soo wareejiyo ana marba wuxuu ku xiran yahay nooca wax aad tulnaysid okay kan waa kii laashiga aha hadda waa ka gudbayna dhinaca meesha ku xigto ayaan gelinaynaa si aan ula qabsano kan ku sii xiga maxaan ka dhigaynaa laashii وهذا الحال كعنت أنا وكسوري جنينا دوا أستأكينا سينقط